هذا وحوي حول معلومات كمدحوينها أمام مدحدا أي كم تاعين أي سفران إلى لكل ما مدحدا كله إيو حول فربدان ومارك تاعي كتعلق صوتك مركا وماركو أنو وعبسي أنا كما قبو وحاليا بايني وحسوسي هذه شو كلانكاو أي كل مايان مدحدا درسكا قارهان إثيوبيا إريتريا oo haatan aad isu wanaagsannahay haatan ka horna sida runta wax aad u fara badan oo dib ah aan ka tabanaynay oo aan lahayn Eritrea waxay caawisaa xagtirka Soomaaliya dhibaatada ku wada Ethiopia faragelin baan kaga caban jiray marka hadda hadii madaxdii درسكو أيش أفكار تانية مدحوينها يو مدحدا كالو صوماليين ومبدأ وناكسن وهذا وناكسن وكل غن هرمرينتا أما بس هرمرينتا الله هرمريو ودلالكو أي نبديهين أي أنا عين دلال دقالسن وإسدلايا وديك دادين هيا وشعب كودي وحودي أي شيء سكويه. واقرتي طبعا ان waxaa aad loo hadalhayay bilihii la soo dhaafay in arinta in xukuumadda Ethiopia ay shaacisay oo ah sameysashada ciidamo badeed oo dalkeeda ah arinta bal ka waran iyada wax saameena oo dhinaceena Soomaaliya amaba wadamada kale ee bariga Afrika xaqiiqadu waxay tahay saan ku sheegayba in dariska nabad la yahay oo horumar barnaamij alla wada leeyahay sida ganacsi iyo deganaansho siyaasadeed intaba waa wax aad u wanaagsan anugu se walwal waxaan ka qabaa xaqiiqi ah ciidanka badda oo Ethiopia oo ciidanka aad u weyn ah badna ma laha Ethiopia marka waxay sameynaysaa ciidanka badda ah oo aad uga sareeya ciidamada kale oo regionka sida Soomaaliya iyo Djibouti marka la eego ciidanka walwal baan anu ka qabaa maxaa yeelay xaqadu waxay tahay mustaqbal weyn waxa laga hadlayaa madaxdan hadda joogta rubama inay sii joogin waqtigoodu inuu ama dhamaado amaba u dhamaado yaa laga yaabaa dan ciidanka badda oo dhismaya oo tagaya dekadaha yaga iyo badeena aad iyo aad baan uga walwalsanahay marka mustaqbal albad waxaan isleeyahay walwalka aad qabtaa marka waa walwal ceenkee ah walwalka aan qabaa waxa weeye in dalkeena oo 15 milyan meelahaas lagu sheego populationkiisa ay si xoog ah oo siyaasadu ku jirto inay u qaadato dalkeena Ethiopia oo 100 milyan ah ama ciidan ahaan ama shacab ahaanba sida haatan hawshu ku socota waayada hadday tagaan xeebaha ama dekadaha Soomaaliya si ay uga laabtaan waddankoodii u tagaan oo loo ahaado laba dawladood oo daris ah anugu arki maayo inay si sahlan oo danu noogu jirto ayaa ciidanka badda oo Ethiopia oo u gudbaya xeebaheena iyo badeena iyo dekedeena waxaan u arkayaa anugu walwal weyn ka muujinaya in uu occupation forces oo dalkeena qabsada
oo u jooga xoog oo aan hadhowto amar iyo wax kale midnana aan maaragtay qaadanayn oo ku baxsanayn waxaad arkaysaa amisom oo la yaqaano mandatekeeda inaanay mandatekeedii amisom ayan ku soconin ee maskaxdooda ay ka socdaan inay dadkii laynayaan maatadii inay laynayaan waxay doonaan inay ku kacayaan meeshay doonaan inay tegayaan marka bal waxaad ka dhigtaa Ethiopia ciidankeeda aad u xoog badan oo badda aadna naga dhaxeeya in ay gacanta ku dhigto eedeena iyo baddeena waa waxaabay yaraatee aan la aqbali karin anuguna walwal aan macquul ahayn baan ka muuji intaa markaan idhaaho xagga cilaaqaadka iyo horumarka isdhexgalka deganaanshaha siyaasadeed ganacsiga waxaa anugu majirin wax wanaagsan ayaan u haystaa inay yihiin oo dawladda haddii ay dariska intaa la yeelato wax wanaagsan baan u haystaa laakiin nuqtadaas ama pointiga haatan anugu aan ka dhawaajiyey walwal weyn oo xaqiiqa ayaa ka jira waa tahay marka dabcan wasiirka gaashaandhigga oo Turkiga oo qamiistii magaalada Muqdisho yimid waxa uu sheegay in ciidamada badda dhisitaankooda iyo qalabeentooduba ay dawladda federaalka ka taageeri doonaan Imaaraadka waxa la leeyahay Somaliland bay ciidamo badan la diyaarinayaan Ethiopia waa tanaa leh ciidamo badan baa dhisanayna dagaalkaas ma kula muuqdaa dagaal amaba hardan lagu jiro gacan ku dhigida xeebaha amaba xeebta dheer ee Soomaaliya waxa weeye waxaan islahayn tababarka ciidan oo Turkiga ay Soomaaliya siiso ama mid badda ha ahaado ama mid biriga ha ahaade iyo tababarada kale oo Ethiopia iyo Djibouti iyo Kenya iyo ka yimaada isma laha aad iyo aad buu kala duwan yahay midka Turkiga waa mid fikran macnana u samaynaya dadka laakiin kuwa kale waa mid abuuraya deganaansho la'aan iyo dhibaato intaas oo ciidan ayaa tan ka hor Ethiopia lagu soo tababarayo Soomaaliya oo afka Ethiopia ku hadlaya ayaga iyo hubkeeduuba waxay galeen shacabka iyo al-shabaab waxaasi marka wax macno keenaya maaha waxaa kaleeto jira rijinka tartan xoog waa ka jira way Ethiopia ay u samaysanaysaa ciidan badan oo ciidanka badda iyo xeebaha maxay u samaysanaysaa bad iyo xeebo midna ma lehe meeshay ku socoto waa la ogyahay marka mana noqonayso arrintu istiraatiijikali 2 sano iyo 3 sano oo madaxda hadda joogta ay Soomaaliya joogayaan isbedel baa dhici kara waxaa dhici kara in la istaniino daris baa nahay taariikhdayaduna aad iyo aad bay u jirtaa iyadoo taariikh dhiig la daadinayo iyo is-afgaran waa is-afgaradka hadda ka jira waa wanaagsan yahay waana soo dhaweynayaa laakiin suurtagal weeye inay dib u laabato halkeedii ku laabato sidaa daraaddeed waxa weeye dabacsanaanta magaceeda la yidhaaho ganacsi baa la furayaayo wadooyin baa la bixinayaayo isdhexgalka bulshada waxaa iga daran ciidankayga ka xoog badan salka inuu ii fadhiisto oo dekedahayga iyo heebahayga iyo baddayda fadhiisto hadhowna aanu jirin luqa aan kula hadlo aan idhaaho xagga iga dul waata marka aad ka daran ummadda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeedna waxaa weeye waa inay ku baraarugtaa oo ay aragtaa ayada marba haddii ciidan meel qabsado baali maayo dadka xoog yar waata Dr. Cabdi Casiis marka
maxay kula tahay inay la gudboon tahay madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ama madaxda kale ee fila Soomaaliya oo ku aadan arintani dabcan badaha Soomaaliya ayaga kaliya ma aan dalku waa dalka yagi waana la leeyahay waxa nala gudboon waxa weeye in aan si aad uga fiirsano ciidanaadu quwad badan oo ciidanka badda ah oo quwad markaan leeyahay xagga hubkiisa iyo farihiisa iyo tababarkiisa weeye waxaan rifeer garaynayaa oo Itoobiya ay leedahay in uusan noo dhaafin deegaamadeeda badda iyo xeebaha iyo dekadaha si kasta oo haatan loo sameeyo nidaam iyo qaanuun haddana ma soconayo marka occupation forces ama quwad nahaysata inayan halkaa ka dhalan ayaan ka digayaa sidaa daraaddeed waxaan leeyahay waxyaalahaan maqmaqlayo hadda oo ku saabsan heshiisyada iyo waxyaalaha inkaasa limitation ama hoos ha loo dhigo oo sida hadda lagu wado si aan ahayn ha loola isticmaalo annagu ma ahin Eritrea oo kale Eritrea waa dal ciidan u diyaarsan yahay ciidan badeed iyo ciidan kaleba annaga waxba nooma diyaarsana lagama qaadi karo Eritrea xeebaheeda iyo badaheeda laakiin annaga waa fragile ama waa wax aad u jilicsan ama waa wax aan jirinba sidaa daraaddeed hawlaha iyaga ha laga fiirsado yaanaan laga dhigin mid awaamir keliya villa Soomaaliya laga bixiyey hawsha yaan laga dhigin waxbaan ku leenahay markaan ku leeyahay ummadda Soomaaliyeed baan siyaasiyiintaan aqoon-yahankii baana talada waxbaan ku leenahay marka awaamirtaasaa la bixiyayo xaggaas ayaa boqolaal kun oo ciidan ka gudbay dawladdaana ogolaatay taas ayadaahi kuma filla mustaqbalka waddankeena jiritaanka waddankeena kuma filla waa in laga wada tashadaa oo daraaso xaqiiqiya la geliyaa oo anuun haatan colaad iyo xumaan la rabin Ethiopia ayaan waxaan doonayaa sovereignty-gayga iyo lahaanshahayga inaan cid kale gacanta u gelin